Wasaaradda Beeraha Somaliland ayaa si degdeg uga soo jawaabtay baaqii qeeladhaanta ee telefishinka caalamiga Cable TV uu ka baahiyay shacabka Beeraleyda iyo mas'uuliyiinta dhawaan ka hadlay Ayaxa ku habsaday deegaanada gobolka G.Sanaag waxaana tiiman la dagaalanka Ayaxa uu horkacayo agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha Somaliland Axmed Cali Maaxo labadii maalmood ee ugu dambeeyay howlgalla ay kula dagaalamayaan Ayaxaasi ka waday deegaano ka tirsan gobolka ayaa waxa saaka xarunta maamulka gobolka mar kale agaasimuhu ka iclaamiyay inay sii wadi doonaan howlgalka ay ku tirtirayaan Ayaxaasi ayaa hadaladiisii kamid ahaa sidatan runaantii tiimkan imika aniga ila socday waxay buufiyeen ama ay ka shaqeeyeen dhul gaaraya ilaa 450 hektar oo runtii ay kala dagaalameen ayaxi mararka qaarkood waxa soo oranaysaa ayax markuu arko wasaaradda horumarinta beeraha oo gaashaaman inuu meeshii ka yaacayo sidaad imika ba aragteen runaantii waxa jira ayaxani waxa weeye mid guurguura ma aha mid meel loogu soo hagaagayo saadarteed maanta oo aanu joogno iyo shalayba magaalada Ceerigaabo iyo nawaaxigeeda total lama hayo ayaxi sida uu badan yahay gobolka G.Sanaag waana gurmadkaasi degdeg ee Wasaaradda Beeraha Somaliland ay ka soo jawaabtay aafada Ayaxaasi ayaa waxa dhinacooda si mugle uga mahad celiyay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka G.Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan maanta waxaanu ka mahadnaqaynaa runtii iyadoo nala joogo agaasimiga guud ee Wasaaradda Beeraha iyo team Wasaaradda Beeraha oo lix gaariya markii hore aanu aad u qaylinay dhibaatadii jirtay iyo aafadii u geystay ayax oo jawaab degdeg ah markiiba ay naga siisay wasaaradda beeruhu oo madaxda wasiirka iyo agaasimaha guudba iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Musabiix Cabdi runtii waanu ka mahadnaqaynaa aad iyo aad agaasima guud ku soo dhaweynayna waanu ku faraxsanahay runtii jawaabta degdeg ee aad ka soo bixiseen markii ka gobol ahaan aanu qeeladhaanteedii soo gaarsiinay ayaxan oo 2 maalmood iyo labadii habeenba Ceerigaabo gudaheega iyo nawaaxiga u dhow oo dhan maxaan ku aad u xaalufiyay mar alla markii aad soo gaadheen hawadana ka kacay eeriyadii oo la waayay meel uu marayo aad iyo aadna waa idinka mahad celinaynaa dhaganuglaantii wasaaraddu ay maxaan ku u soo gurmatay dadkeeda kolba halka wax lagu sheego ana tiiman kala dagaalanka ayaxa ka socda Wasaaradda Beeraha Somaliland ay ka howlgali doonaan maalmaha soo socda guud ahaanba gobolka Ali Aadan Daahir telefishinka caalamiga Cable TV magaalada Ceerigaabo magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Somaliland ama bishoo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha